waxaan ka wacyigelinaa dadka qabiilka qabyaaladda in laga tago qabyaaladii ayaa dadkii saamaysay markaa sidaa darteed inaanu dadka aan wacyigeliyo oo heesa qabyaaladda ku saabsan u qaado oo ay bismillaahi raxmaan raxiim kulatu wacan u wanaagsan ku soo dhawaada horsocod media aad mar walba kala barteen inay nii soo gudbiso barnaamijyo kala duwan cawa barnaamijkeenu wuxuu noqon doonaa falanqaynta fanka aan ku soo qaadan doono warbixin aan ka diyaarinay fanaanka weyn ee reer Hargeysa Maxamed PK inta aan barnaamijka u gudagalin fadlan subscribe saar ee commentiya sida u aragtaan ee barnaamijkan hoos inuu soo qoro waan ku mahadsantihiin sida aad mar walba noogu taxantiin intii dhicsadii gooda shubtiyo isbaanu dhignaa intii dhimatay fanaanka Maxamed PK ayaa warbixin aan ka diyaarinay warbixinta ay baartay horsocod media ugu dambeyn waxa soo baxday fanaanka Maxamed PK inuu yahay wadani ee jecel deegaanka uu ka soo jeedo dadka badankiisa Maxamed PK waxay ku tiriyaan inuu cunsur yahay nacab jiritaanka Soomaalimo laakiin taas dadka aqli la saaxiibka ah ma rumaysna Maxamed PK inuu cunsur yahay haddii uu jecel u qaaday deegaanka uu ka soo jeedo Maxamed PK ma cunsuri baa waxaan su'aashaas u deynay dadka ku xiran oo marba lana ixtiraama horsocod media Maxamed PK waa wadani jecel deegaanka uu ka soo jeedo la kala saaro deegaanka iyo qabiilka uu ka soo jeedo calaamadaha lagu garto wadani inuu yahay Maxamed PK waxaan ku qeexnay qodobo ay ka mid yihiin shan qodob ayaan ku qeexnay calaamadaha lagu garto inuu wadani yahay Maxamed PK waxaana ka mid ah wuxuu u sameeyay yahay dadka kala dhaxayso nolosha deegaanka wuxuu u awood leeyahay samirka dhibaato kasto oo ku timaada dadka kala dhaxayso nolosha iyo deegaanka cilmiga iyo aqliga dadka dheer yahay ma ka xasdo wuxuu ku shaqeeyaa horumarka deegaanka uu ku nool yahay wuxuu ku farxaa horumarka shacab weynaha la degan deegaankiisa Maxamed PK ayaa sanadkii 2018 qabtay barnaamij kaga hadlayo wacyigelinta qabyaaladda Maxamed PK markuu barnaamijkaas qabanayay wuxuu ka sheegay qabyaaladdu qodobo badan wuxuuna yiri ma jirto qof Soomaaliyeed aanan taaban dhibaato qabiil si toos ah si aan toos ahaynba waxaynu wada ognahay in colaad oo dhami ka bilaabato qabyaalad huban dad badan oo libaaxi ahaan jiray u soo dhintay ama u halgamay laba tusaale aan u soo qaato ayuu yiri Maxamed PK Soomaaliland wixii keenay dagaaladii sokeeye waxay ahaayeen qabyaalad Ilaahay baa mahad leh oo ku dulqaaday inkastoo imika bataagan tahay qabyaaladu aan waxba la isku ogoleen been ma aha Soomaaliya maanta waxay u diiday inay samaysato dawlad hagaagsan oo loo dhan yahay waxa waaye qabyaaladu Ilaahay ha ka dulqaado iyaga aamin qabiilka hadii lagu ekeysiyo sidii wanaagsaneed ee Ilaahay ugu talagalay ee ahayd in la isku garto la isku taageero qabiilka dhexdiisa ma xumaanteen dadku ama Soomaalidu sidaan u fahmay inta aan joogay wadanka waxaan arkay in qabiilka u haystaan inuu yahay imisa dawlad kugu jira imisa wasiir baad leedahay imisa wasiir ku xigeen jawaabtu waa maya wax tardayo waxa laga yaabaa inuu magacii reerka ka soo jeedo wuxuu dhumigaba waxaan aaminsanahay in inta xilka loo iyo mansabka la siiyo aan wadanka iyo cid uu ka jeedaba aan waxba isku tarin dii loo noqon lahaa dhanka diinta waxaan qabaa in dadku dhammaan walaalow lahaayeen waxaana wada qaybsan lahaayeen waa hadii lagu dhaqmi lahaa fanaanka Maxamed PK ayaa warbixintan hore u diyaariyay 2018 mar uu qabanayay barnaamij uu kaga hadlayo wacyigelinta qabyaaladda waxaa jira fanaaniin badan oo fankii qabyaalad ku dabaqayo waxaana ka mid ah fanaaniintaas Omar Barbar Ilkaase labadaas fanaan ayaa tusaale ahaan u soo qaadanaynaa waxaana sii jira fanaaniin badan oo fankii ku dabaqayo qabyaalad aan ugu horeynay dalkawdaha asaaskii bullahan balabadhaha baaraaya khayr bal saddexdaha wabishii ogasehe balkawdaha
asaaskii buntland laba dhaha Omar Barbar deegaan ahaan wuxuu ka soo jeedaa Puntland wuxuu gaarsiiyay xitaa inuu fankii ku dabaqo qabyaalad. Omar Barbar waxaa ka sii daran fanaanka Ilka Case oo ku soo caanbaxay waxaan ahay wadani waxaan soo celinayaa shanta Soomaaliyeed. Ilka Case asna wuxuu isku dhigaa wadani jecel shanta Soomaaliyeed laakiin dadka way barteen waxaa marar badan wuxuu qabyaalad ku difaacay siyaasiyiin ahaan ka soo jeeda deegaanka uu ka soo jeeda ee Jubaland. Fanaanka Maxamed PK ayaa hore wuxuu u yiri aan ku dayano wadamada jaarkeena ah sida Kenya ama Ethiopia oo leh boqolaal qabiil ee waliba ku hadla boqolaal af oo kala duwan. Dadku ha midoobaan danta guud qaran oo ka waantoobaan qabiileysiga sidaas buu ku jira horumarkeenu. waxaa sidaas yiri Maxamed PK qabiileysigu wuxuu inuu ku ridaa tafaruq dan guud oo lagu horumariyo mid shakhsi is-aamin la'aan cabsi gaajo iyo tahriib. dhalantii wadanka u badnaa dhammaantood ku dhammaadeen kadib markii rajo ku arki waayeen meesha ay wax ku barteen. waxaa siyaab leh inaad aragtaan badanka intii aqoon isbidaysay intii diinta lahayd waanu baranay oo iyaguna iminkii aad arkaysaan inay noqdeen kuwa bahasha buunbuuniya iyadoo danahooda gaarka ahne ku qarinaya ama wata dimuqraadiyad ama diintuba ogoleen. marka aad waxaas oo dhan qiimeyso minaynu ku muuqan inta qabyaaladuna ku haysto. waxaas su'aashaas weydiiyay Maxamed PK mar uu qabanayo barnaamijka wacyigelinta qabyaaladda. farinta ee Horsocod Media u dirayso shacabweynaha Soomaaliyeed waxay noqon doontaa Georgia ka qaybgal shir qabiileysan oo adigu iska bilow ka har cid kasta oo burburisa qabyaaladda kuna dhaqaaqda la saaxiib inta qabiileysiga nacab taageer cid kasta oo wanaag wada macaanka danta guud ka sheekay. waa in dadku isdhexgalo waa in la guursado si la isku soo dhawaado sidii diinteena bartay. waa in la wada guursado waa la wada gaya oo la dhaafo yasida ama wadahada mid kala guursan ama mala guursan jirin. waa in la joojiyaa qabyaaladu qabiilna lagu amaanayo mid hoose lagu dhigayo oo kuwa tiriya aanan ogeyn khatarteeda. waa in la joojiyaa kaftanka qabyaalada waayo qabiilku lagu kaftamaa waa jinsiyad lagu kaftamo. reer galbeedku way iska joojiyeen meelaha qaarna waa dambi la isku xiro. anigu waa in ku dayanaa wanaaga iyo isku soo dhawaanshaha dhiirigelinta horumarineed. kan ayaan ku soo gabagabeynaynaa warbixintii ahayd Maxamed PK waa wadani. haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar la sii wadaag asxaabtaada laagna saar hoosna kommentiyo noogu soo qora sidaad u aragtaan barnaamijkan. waadna ku mahadsantihiin sidaad maalmad marba noo dhiirigelisaan. ku xiran channelka Horsocod Media waxaan ku wargelinaynaa in qof alla qofkii u baahdo in loo sameeyo shoot up ee diyaar la tahay Horsocod Media. waa in la gacan qabtaa qof walba Soomaali ah waa in la gacan qabtaa. xaasidnimadu ma fiicno. ka tagayna sidaas iyo nabadgelyo. heer lagu magaadhe waa gunnimo dhalinyarada geeskow gacalayaal gallad male qabyaalade waa gubtaan waa cudur gadaafaho guweyn heer lagu magaadhe waa gunnimo waa godob walaalka iyo gamoor gablan iyo gumaad baa laga dhaxlaa nacas garash jaliitay garabsataa qof kastoo gargaarsada way gabtaa.